inaan doorkii uu nagu lahaa horumarinta dhaqanka aan soo bandhigno ka horowba inaan soo bandhigno agoo dhalinyarka ahaan dhaqankii Soomaaliyeed wadano calankii deegaanka aan xambaarsano oo huwanahay oo garbaha ku wadano inaan soo bandhigno wallahi horta baahi aad u weyn baa loo qabaa dhalinyarta horta waxay leeyihiin hal abuuro akademiyad in la badiyo suu dhaqankeen u sii jiro oo de dhaxal waara u noqdo beritoole oo holal waaweyn oo lagu tababarto dhalinyartii de say balwadi iyo xumaantu ka soo haraan dhaqankii oo bartaan loo sameeyo waa loo baahan yahay taas bulshada Soomaaliyeed waxay leedahay ciyaar dhaqameed kala gedisan ciyaar dhaqameedkan ayaa ah kuwo ay ciyaaraan dhadiga iyo labku xilliyada barwaaqada arooska waqtiyada ay bulshadu leedahay munaasabado u gaar ah ururka dhaqanka ee Jigjiga Academy waa koox isku bahaysatay dhalinyaro magaalada Jigjiga ku nool waxaan ka wareysanay gudoomiyaha ururkan goorta la aasasay kooxdan hawlaha ay qabato waxyaabaha u qabsoomay iyo sidoo kale waxyaabaha u qorshaysan muddooyinka soo socda kooxda waxa la aasay 2021 haddana waxaan ku jirnaa 2025 muddo 4 sano iyo badh bay hadda dhisan tahay 15 maadaama ku jirno inta ay dhisan tahay kooxda walaal aqwada badan bay la soo kulantay dhanka diriiska oo kale kooxda waxay guud ahaan ka kooban tahay 15 wiil iyo 15 gabdhood ay ka kooban tahay konton ciyaaraan ku ciyaarno aad iyo aad buu kala duwan yihiin wilwilada dhaantada jiibtii jaandeertii ciyaaro badan baan ku ciyaarnaa saylicigii batarkii aan la soo koobi karin waliba ciyaaro aad badan baan ku ciyaarnaa wallahi horta dhaqanku waa shay soo jireena indho waxay arkaan buafkuna gooyaabay Soomaalida ugu maamaado waxa jirta dawlad deegaanka maamulka magaalada Jigjiga kooxo waaweyn kooxayaasha deegaanka oo ciyaaro fanaaniin waaweyn ay ku jiraan ay ka soo muuqdaan iyadoo saatay anagu waxaan horta anigu ahaan macalinka kooxda anigu ah gudoomiyaha kooxda waxaan ka bartaa kooxaha waaweyn ee dawlad deegaanka Soomaalida raggaas baan daba fadhiistaa oo daba socdaa oo wixii murtiye iyo wixii soo jireen aan kala macaamilaa iyo wixii talo iyo wixii tusaalaaba marka dhaqan hadda la dhaho dhaqan waa barashaduna waxay ku timaadaa hadbad sida aad bulshada wax ka shaqo bal waan gartay dadka kala sii baraysid maadaama loo baahan yahay in dhalinyarada deegaanka Soomaalidu ay loo baahan yahay inay bartaan dhaqankooda dhaqamada kala duwan barashada ka sokow sideed ugu sii gudbisin dhalinyarada kale ee u baahan inay barato yaani goobtan wallahi arday badan baa jirta ardaydu isku ma jiraan bilaadanku ma wada sinno waxa jirta arday markaa sekinka ama daqiiqadaaba wax ku fahmaya iyo arday aanan bilo iyo something toddobaad isbuuciye ku qaato inay ku fahmaan ay ku qaato lagu celceliyo marka kooxdan waxay kala leedahay nidaamyo iyo dastuuriyo waxay kooxdu leedahay kuwa sare kuwa dhexe kuwa hoose dabaqada hoose waa dadka cusub darajooyin bay kala